ogaadeenna waa is yaqaanaa nabadda annaga waan rabnaa laakiin nabadda haddii la waayo wixii la rabaan rabnaa haddana cid aan ka cabsanaynaa ma jirto cid aan gacan ka dadanaynaa ma laha madaxweyne haddii madaxweyneyaashu nin walba madaxweyne doorta hadda bahgari iyo cabdallaan maqlayo madaxweyneyaal waxba iyaguna samaysanaya nin walba ogaadeen madaxweynaha la istaago markaasaa la isugu iman doonaa nabaddu waxay tahay iyo golo la isugu iman oo wax halaala la dhisan laakiin aniga ay dooro kulli binti cindan heella waxa keenay heerkan hadda soo gaarsiiyay waa maqaawil waxaa la yidhi hasha waxaa la yidhi markay meeshaa maraysa allow yaa yax dhaha maqaawil baa inta ka soo xambaareen dhoobleyba waxay geliyeen raasgaabooni wuu nagu faafay heer ilaa iyo hadda badhaadhe gacanta uu geliyo shabaab gacanta uu geliyo adduunka markuu ka codsanaya diyaarad hadda uu ka hadlayana wuxuu leeyahay dhoobley dadkii laga soo qaadaya ee umulahaaba dhexda ku baqatay degmooyinka ugu laga soo qaadaya war moo ka hayma kuwa ayaga cidlama baarame kuwa degmooyinka badhaadhe iyo ba'aale ee la haysto ee isku gabdhihii o dhan isku bakteeyaan meydka iyo dhaawaca yaalla isagoo ma yaqaano laakiin dhoobley wixii ka imanaya gabadh baa dhexda ku foorata ku dhimatay buu yidhaha dadku go'doomiyo shabaab gacanta u geliyana ma sheego cid aan ka baqayan ma leh haddii dad wax ka baqayaan ilaahayga qaadirkaa ma ka baqaya waxaana diyaar u ahay aniga oo axmed yara waddo kasta oo la maro inaan la marro raggii ridi jiray maqaawilkii ridi jiray wixii dhammaaday waa dhammaaday iyagoo axmedo inta badan difaacaya annaga badhaadha cidba nagama qabsan jirin yaa ku dhammaaday intii soo hadhayna hadda waa joogaan waxa aan wada leenahay haddii la diido in la wada maalo waxaan la wada lahayn baa la wada raadsanaya cid aan ka baqayna male madaxweyne yaal soo socday iyo haddii la waxay ku caanashubaan 150 abgaalo ka timi xamar 150 ka timi jooraya wajeer baa ku caanashubaysa isagana calaamasaar marka waxaa ilaahay lagu mahadinayaa maqaabilow halkaa taagantaadaas dhigay rag badan baa in muuqda oo maqaabil raggii habeenkii gurguuraya u badan meelaha u gurguuraya waa ay wada muuqdaan kulli waan garanaya anugu mar dhowaan mid waan maqnaa muddo laakiin xogta dhabta waan hayaa anugu waxaa weeye war maqaabil idinka halkaa geeye haddana idinkaa saa kaseen lehe ilma adeerayaalow waxaan meesha hadda aad ku sheegteen halkan yaan looga dhaqaaqin sidii loogu shaqeey ha loo wada haddana nin aan ka cabsanayna ma leh 100 hadday dhimato 20 ka soo hadhaa kismaayo qabsan haddii laakiin nabad la helo nabadda annaga diyaar ah nabad haddii la waayo maqaabul balbadana ma deeqdo afar sibaarkeed baa maqalan ogeyn ba shirkan wax dadka ku soo koobay maqaabul intan maaha intan ilaahay nagama dhigaba mana naga dhiginba muwaafaqadii baa naga maqan muwaafaqadiina saaka la helay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadalkaygu intaa weeyaan ma dheerayn karo waxaan rabnaa maqaabulow assalaamu calaykum waxaan rabnaa maqaabul si aad og tihiin jubbaland maqaabulnimada horta waa wax loo dhashay ee wax hadda la noqonaya ma aha maqaabul waa maqaabul ummadaha kalena waa qabiilooyin haddana soomaali baynu ka siinaa waxaan rabnaa annagu inay sidii uu sheegay odaygii igu horreeyey maqaabilnimada ay waa laba taabtaan waa halkada inoo ololeysaa shayga calaacalka la yidhaahdo calaacalka wax saxa ma aha annaga ma calaacalayno waxaanu annagoo odayaala samaynay in maqaabul bal waxa jira jubbaland yaalla ama asagoo ku kala aragti duwan yahay ama dad badan ay u arkaan in maaragtay meesha khalad yaallo inaanu saxno oo bal maqaabil wada tashado kala maqaabul leh odayaashii maqaabul ee joogay kismaayo waa isu yimaadeen waxaa soo baxday fakara war aan wada tashanno oo bal kolkeen aan isu keenno waa ku guulaysanay maasha allah intii badnayd waa ku guulaysanay haddaan marka taa ku guulaysanay waxaan rabnaa inaan dhaqan gelino haddaanu nahay maqaabul odayaashiis markii ay dadku tashadaan baa waxaa soo baxa war maxaa inaga maqan miyaan gardarannahay mise waa layna gardaran yahay laakiin haddii ninba meel asagu isla qumanaado xaaladaasu sax ma noqoto sidaad aad garanaysaa ka odayaalhaan marka waxaanu garannay inaannu talada maqaabul ay shaqayso kii maqan isu yimaado
mid kasta la yidhaahdo war maxaa inaga maqan maxaa reer hebel inaga Jubbaland inagaga maqan maxaan doonaynaa maxaa laynoo diidan yahay annaga barnaamijkaa soo diyaarinay sidaa weeye haddaan odayaashii maqaabul nahay rabnaa inaan ka guul gaadhno haddii alla yidhaahdo cid ka adag iyo cid riixi karta iyo cid ka baqayso oo Jubbaland degan ama magacyada la yahayna ma jiraan waxaan diyaar u nahay annagu haddaanu nahay maqaabul wixii aan rabno oon doonayno haddaan leenahay inaan qaadano haddaan nalahayna maxaan lagu qanciyo waxaan ku weynay saas iyo saasaad ku waayeysaane sidaa ku qancayna la yidhaahdo inaan isqancinaan rabnaa dadka Jubbaland jooga annagu walaalkanaga madaxweynaha adduunsibgale iyo madaxweynayaal kale oo magaalada kulligaan waa wada walaalahana laakiin waxaan rabnaa sida uu sheegay madaxweynuhu markii u horreysay yacni siiqadiisii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaanna ku qanacsanayn Jubbaland oo waxa weeye Kismaayo degan oo magaalooyinkoodii kala la haysto oo 3 madaxweyne iyo 4 madaxweyne kala yeelata kuma qanacsan haddaanu nahay qabiilka odayaashiisii maqaabul waxaanu ku qanacsanahay laakiin taladu intay shaqayso nin walba cadku leeyahay ku fiican yahay in la siiyo oo isqancino waxaana diyaar u nahay walaalkana Cabdi iyo Xidig iyo kuwa kaleba intay isu yimaadaan inaynu isu keenno haddii laga helo annagu waan ku filannahay waxa weeye mataqaanaa walaalkana xagiisa taladiisa waan wada kuwa kalena in ayagu walaalaha keenaan oo la isjifeeyo intii la yimaado war Jubbaland madaxweynimadeeda asalka ha loo dhigo yaan wax la kala dhicin yaan wax la kala kaxaysanin annagu midaan u soconno middaa weeye dagaal uma soconno mana ogolaanayno waxa weeye la isweerarayaa iyo hebel bay ka dhacday iyo kana waxaas wax shaqaynaya ma aha cid isweerari karta ma jiro laakiin talam saliim ah oo la wada qaato oo laga wada taliyay oo la isu keeno wiilasha wada madaxweynayaasha wada noqday la isu keeno mid la soo saaro tala ah midaasaan u soconaa taasaan rabnaa inaan keenno aad iyo aad baa u salaamantihiin walaalkanina waan u hambalyeeynaa shirka uu noo qabtay iyo sidoo hadalka u soo dhigayba waxaan rabnaa si cadiifad la'aan ah talada maqaabul oo siday u shaqayn jirtay inuu shaqayso oo qarniyaashii tagay sidii ragga halka joogay ugu shaqayn jireen inay u shaqayso isqancin iyo magaranaysaa wixii ka maqan wada raasaan inaan dib ugu soo celinno wixii barnaamij oo intaa ka dambeeya waxaan rabnaa ka oday ahaan iyo madaxweynahanaga inaan isa soo qancino oo si wixii naga maqan wada raasano wixii ka maqan nalagu dulmahayo aan dhahna nalagama heli karo waxaan u soconaa sidaa way aad iyo aad baa u mahadsantiin